ismaqal iyo daawasho wanaagsan meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan xilligaana waxaa ka mid ah wasiir cudurka corona ugu geeriyooday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. wararkii ugu dambeeyay weerar iyo dagaal toos ah oo ka dhacay degmada Doblo iyo qasaaraha guud ee ka dhashay weerarkaasi. koox taageere ka hesha dawladda Iiraan oo iclaamisay howlgallay ka fulin doonta gudaha boqortooyada Sacuudiga. markab Talyaaniga laga leeyahay oo kaga sugnaa xeebaha Soomaaliya oo joojiyay shaqadii uu hayay. gudoomiyihii baarlamaanka Puntland oo ciil u qabay kala dul dhacay madaxweyne Dani. wasiirro ku baxay dagaal ciidamada danab iyo maleeshiyaad ku dhexmaray deegaano ka tirsan gobolka Mudug. Israa'iil Raashiyaan ah oo taageeri jiray Generaal Khalifa Haftar oo isaga baxay gudaha dalka Liibiya iyo Shiinaha oo ka digay tallaabo ka dhan ah dawladda Mareykanka. waa 25 bisha shanaad sanadka 2020 intaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon ee Soomaaliya iyo caalamka. iminkana u diyaar garow inaad daawato macluumaadiyadaasi oo dhameystiran. haddii ay tahay markii kugu horeyso aadna soo booqato fadlan subscribe saar channelka oo hel macluumaadiyadii ugu dambeeyay oo halkan aan ku soo gudbino. fadlan like saar muuqaalka si aan ogaano heerka ka helitaanka warbixinada aan halkan ku soo gudbino. ka dhiiba aragtidaada qodobka ku soo jiita la wadaag saaxiibadaada. mahadsanid mar kale inaad ka mid tahay saaxiibada nagu xiran. waxaan ku hormari doonaa degmada Dobley iyo dagaalka ka dhacay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya ciidamada Al-Shabaab iyo ciidamada daraawiishta ee Jubbaland oo xalay ka dhacay deegaano hoostaga degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya. dagaalka wuxuu yimid kadib markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xire ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaaladaas, halkaas oo tababar ugu socday ciidamo cusub oo gaariya ku dhawaad 300 askari kuwaas oo aan hubaysnayn balse loo diyaarinayo howlgal ka dhan ah Al-Shabaab. wararku waxa intaasi ku darayaan dagaalka socday muddo dheer isla markaana la soo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. sidoo kalena waxaa jira qasaare dhimasho iyo dhaawac oo dhinacyada kala gaaray. wararka waxaa kaloo ay sheegayaan in mas'uuliyiin ka tirsan Jubbaland ay guul ka sheegteen dagaalada. maxamed cabdullaahi koreyd oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada Jubbaland ee degmada Dobley ayaa ka warbixiyay dagaalka waxaana uu sheegtay guul inay ka gaareen. waxa uu tilmaamay in ay ku dileen 2 xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab ee weerarka ku soo qaaday saldhigooda. waxaa kaloo intaasi uu ku daray inay iska difaaceen weerarka lagu soo qaaday inkastoo uusan shaacin qasaaraha dhankooda soo gaaray. dhinaca kalena ma jiro ilaa iminka wax war oo ka soo baxay dhanka Al-Shabaab oo ku aadan weerarka iyo dagaalkii xigay intaba. xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa maanta u muuqda kuwo degan waxaana ciidamo ka tirsan Jubbaland oo gurmada lagu waramayaa inay gaareen degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose iyadoo laga baqayo in weeraro kale ay kala kulmaan xubnaha Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday saldhigan oo tababar lagu siinayo ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta ee Jubbaland. macluumaadiyadii waxyaabaha kale ee ka soo kordha guud ahaan wararkeena kale ayaan ku eegi doonaa balse markaan aan eegno wasiirka u geeriyooday cudurka coronavirus. allah u naxariistay waxaa maanta gudaha magaalada Muqdisho ku geeriyooday wasiirkii deegaanka iyo beeraha ee maamulka Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid oo maalmihii ugu dambeeyay la xanuunsanaya cudurka faafa ee coronavirus. geerida wasiir Gamaadiid waxaa xaqiijiyay qaar ka mid ah eheladiisa iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. allah u naxariistay Ismaaciil Diiriye Gamaadiid ayaa muddooyinkii dambe waxa lagula tacaalayay xaaladiisa caafimaad magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya kadib markii dhawaan xaalad caafimaad looga soo qaaday magaalada Garowe oo uu kula dhacay cudurka safmarka ee COVID-19. Puntland ayaa waxay ka mid ah deegaanada sida daran uu saameeyay cudurka faafa ee coronavirus kaasi oo haatan farabaan ku haya guud ahaan dalka Soomaaliya. dhinaca kalena madaxweyne Saciid Cabdilaahi Maxamed Dani ayaa wuxuu war ka soo saaray geerida marxuum Gamaadiid waxaana uu tacsi u diray golaha xukuumadda iyo sidoo kale ehelada marxuumka oo Alle ugu baryay inuu ka waraabiyo jannadii Firdawso. markana waxaan eegaynaa macluumaadka ugu waaweyn dunida annagoo eegi doona weerarka ay kooxda taageerta Iiraan ay ku baaqeen. mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maleeshiyaadka Kataib Hezbollah oo ka dagaalama gudaha dalka Ciraaq ayaa waxay ku baaqeen in howlgalla jihaad ay ka fulinayaan gudaha boqortooyada Sacuudiga iyaga oo sheegay in weeraro Sacuudiga dhexdiisa kaliya aysan ahayn meesha ay qorseynayaan sidoo kalena ay doonayaan in meesha ay ka saaraan qoyska boqortooyada ee reer Aala Sacuud iyo haraagooda sida ay baahisay wakaalada wararka Iiraan ee Faris. Kataib Hezbollah waa maleeshiyaad awood badan oo sida militariga oo kale u tababaran taasi oo taageero ka hesha dowladda Iiraan. Abu Cali al-Askari oo ah afayeenka kooxda Kataib Hezbollah ayaa hadalkani ku baahiyay aalada Telegramka isagoo weerarka gantaalada iyo drone-ka ahaa ee lagu qaaday warshadaha shidaalka ee Sacuudiga tusaale uga dhigay weerarada la doonayo in Sacuudiga lagu qaado. Sacuudiga ayaana weerarkaasi waxa uu ku eedeeyay dowladda Iiraan laakiin Iiraan waxay sheegtay in weerarka ay qaadeen Xuutiyiin
xuutiyiinta ka dagaalama gudaha dalka Yemen. Afhayeenka kooxda Kataib Xisbullah ayaa dowladda Ciraaq iyo kooxaha kaleento wuxuu ugu baaqay in ay beegsadaan Maxamed bin Salmaan waxaana uu qoyska boqortooyada ula barbardhigay kooxda Daacish. Hadalka waxa uu soo ifbaxay kadib markii la doosiyay codaha ay ku wada hadleen wasiirka arrimaha dibadda Cusmaan Yuusuf bin Calawi iyo hogaamiyihii hore ee Liibiya Muammar al-Qadaafi kaasi oo bin Calawi uu Qadaafi ugu sheeganayay ama uu ugu sheegayay in 40,000 oo qof oo u dhashay Sacuudiga ay ka howlgalaan gudaha dalka Ciraaq. Codkan waxaa la sheegay in la duubay 10 sano ka hor. Sida uu baahiyay telefishinka Al-Carabiya, codka waxaa la duubay iyada oo Qadaafi iyo bin Calawi ay ka tashanayeen qorshe Sacuudiga looga kala qaybinayo wadamo yaryar isla markaana ay ku qiyaaseen in doorka qoyska boqortooyada uu dhamaaday. Codkaas ayaa waxaa la sheegay inay baahiyeen mucaaradka dalka Cumaan oo ay suurtagal tahay inay ka heleen dowladda Qatar oo isku dayaysa inay weeqdo xiriirka u dhaxeeya Sacuudiga iyo Cumaan. Sidaasina waxaa Al-Carabiya u sheegay ilwareed aan la magacaabin oo jooga Khaliijka. Sabtidii dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in safiirkeeda Ciraaq ay dib ugu shaqo bilaabayo sida ugu dhaqsiyaha badan waliba kadib kulan dhexmaray ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ciraaq, wasiirka maaliyadda, siyahayaha wasiirka shidaalka iyo saraakiil ka socotay dowladda Sacuudiga. Waxyaabaha ka soo kordha iyo jawaabta arrintan ay ka bixiyaan boqortooyada Sacuudiga wararkeena kale ayaan ku eegi doonaa, balse markan aan eegno hadalkii kululaha ee gudoomiyihii baarlamaanka ee Puntland. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Doobadaareed ayaa markii ugu horeysay ka hadlay khilaaf siyaasadeedka haatan ka dhex taagan mas'uuliyiinta ugu sarreysa Puntland. Doobadaareed oo bixiyay wareysi dheer ayaa eedayn u jeediyay madaxweyne Siciid Dani waxaana uu sheegay inuu ka soo horjeedo in talada Puntland ay wax ku yeeshaan xubnaha u dhow ee la shaqeeya sida ku-xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka. Sidoo kale waxaa intaasi uu ku daray in khilaafka hadda jiraha uu ka dhashay markii madaxweynuhu uu diiday inuu la tashado ku-xigeenkiisa sidoo hadalka ugu dhigay. Ugu dambeyntiina wuxuu ku baaqay in lagu dhaqmo lana ilaaliyo dastuurka iyo shuruucda u degsan deegaanada Puntland si looga gaashaanto dib u dhac kale oo ku yimaada horumarada maamulka Puntland. Hadalka gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo hadda uu soo ifbaxay meeshii ugu sarreysayna uu gaaray khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Siciid Cabdilaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash kuwaasoo isku haya awoodda maamulka laba magaalana saldhig ka kala dhigtay. markana haddii aan eegno kadib markii dagaal u dhaxeeya ciidamo ka tirsan dowladda gaar ahaan ciidamada danab iyo maleeshiyaad hubaysan uu ka dhacay koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa maalmihii ugu dambeeyay xiisad laga dareemayo duleedka magaalada Gaalkacyo. maamulka Galmudug ayaa wafdi wasiiro ah waxa uu diray deegaanka Saaxqurun ee gobolka Mudug halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada danab qaybta koowaad iyo maleeshiyaadkii ay wada dagaalameen oo habbeeleed u abaabulan. Arrintan ayaa timid kadib markii dhawaan ciidamada danab ay soo xireen nin caan ka ah deegaanka kuwaas oo xarigiisa uu ka dhashay xiisad culus oo sababtay dagaalka dhexmara ciidanka danab iyo maleeshiyaadka beesha uu ka soo jeedo ruuxii dhawaan ciidamada halkaasi ay ka soo kaxeeyeen. Wafdiga wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug waxaa hogaaminaya wasiirka wasaaradda amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi kuwaasi oo gaaray deegaanka Saaxqurun si xal looga gaaro ama loo kala qaado ciidamada danab iyo maleeshiyaadka hubaysan ee halkaasi isku hor fadhiya. Wasiir Fiqi ayaa waawaan iyo dadaalo waxa uu ka sameyn doonaa labada dhinac waxaana dhinaca kale la sheegay inuu doonayo inuu ka wareysto iyadoo ay dhinac sodaan dadaalada Galmudug kuwaas oo ay wadaan waxgaradka gobolka si loo baajiyo dagaal halkaasi ka dhaca. Dagaalkii ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacyo ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo kala gaaray ciidanka danab iyo maleeshiyaadka hubaysan ee xerada weeraray kuwaas oo markii dambe ciidamadu ay ku weerareen deegaanka Saaxqurun oo ay ka soo jeedaan. wararka caalamka ugu waaweyn haddii aan eegnana calooshood u shaqaystayaal Raashiyaan ah oo taageeri jiray ciidamada General Khalifa Haftar ayaa lagu waramayaa in xaddii ay isaga baxeen saldhigoodii galbeedka Liibiya sida ay xaqiijiyeen saraakiisha gobolada koonfureed ee dalkaas. duqa magaalada Ben Walid ee dalka Liibiya Salim Calaywaan ayaa sheegay in dagaalamayaal calooshood u shaqaystayaal oo ka socday kooxda Wagner Group ee dalka Russia ay shalay ka dhoofeen garoonka diyaaradaha ee degmada Bani Walid oo 150 kilomitir dhanka koonfur bari kaga toosan caasimada Liibiya ee Tripoli. mas-uulkaas ayaa waxaa kaloo uu sheegay isagoo la hadlaya wakaalada wararka ee Reuters in dagaalamayaashaasi iyo hubkooda culusba lagu daadguriyay 3 diyaaradood oo ka soo degay garoonka degmada Bani Walid iyada oo loo duuliyay degmada Jufra oo ku taala galbeedka dalka Liibiya oo ay ku sugan yihiin ciidamada maleeshiyaadka daacad u ah General Khalifa Haftar. ilaa 1200 calooshood u shaqaystayaal Raashiyaan ayaa ku sugan gudaha dalka Liibiya kuwaas oo taageero siinaya maleeshiyaadka General Khalifa Haftar ee gulufta colaadeed kaga soo horjeeda dowladda Liibiya ee GNA oo caalamka uu aqoonsan yahay. maleeshiyada General Khalifa Haftar oo taageero ka helaya Ruushka, Imaaraadka Carabta, Masar iyo sidoo kale Sacuudiga guuldarro waaweyn ayay la kulmeen 13 maalmood ee ugu
dambeeyay kadib markii laga qabsaday magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha dalka Liibiya. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ciidankiisa ay taageereen dowladda Liibiya ayaa bilowgii sanadkan waxa uu sheegay in 2,000 oo calooshood u shaqaystayaal ka tirsan kooxda Wagner Group ee Raashiyaanka ay ka dagaalamayaan gudaha dalka Liibiya. Liibiya ayaa xaalad kala gashay Turkigana waxa uu sheegay inay ka badbaadinayaan dagaal sokeeye. ugu dambeyntii dowladda Shiinaha ayaa maanta ka digtay inay qaadi doonto tallaabooyin jawaab ah haddii Mareykanka uu u adkaysto inuu waxyeeleeyo danaha gobolka gaar ahaan Hong Kong. Washington ayaa dhawaan waxay sheegtay inay soo rogi doonto cunaqabatayna ka dhana Shiinaha sabab la xiriira sharci cusub oo amniga qaranka kaasi oo Shiinaha ay doonayaan in ay ka dhaqangeliyaan Hong Kong. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee China ayaa wariyaasha waxa uu sheegay in Mareykanku isku dayo inuu dhaawaco amniga qaranka ee dalka China. waxa uu sheegay inay Beijing ay ashtaka xoogan ka gudbisay hadal ka soo yeeray la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad kaasi oo sheegay in sharciga amniga ee Hong Kong uu hogaamin karayo cunaqabatayn ka timaada Mareykanka. Shiinaha ayaa ku gacan seeray caawashada ka imaanaysa dalalka dibadda ee la xiriira faragelinta Hong Kong waxaana ay sheegtay in sharciga cusub uusan waxba u dhimi doonin ismaamulkaasi. wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya oo aad halkan ka daawanayseen wanaaganta haday taa